munaasabadan lagu qabtay magaalada Ceergaawo ayna ka soo qayb galeen madax dhaqameed guurtii waxgarad kale haween aqoon-yahan dhalinyaro mas'uuliyiin xisbiga kulmiye gobolka Sanaag xildhibaano golaha deegaanka Ceergaawo mas'uuliyiinta laamaha dowladda qaarkood iyo waliba barasaabka gobolka Sanaag ayaa ahayd mid lagu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici isla markaana lagu hoga tusaaleynayay madaxweynaha cusub inuu hore u sii wado inta ka qabyada waxqabadka xukuumadda hore ka sameysay gobolka Sanaag waxaana ugu horeyn xubnihii isugu jiray madax dhaqameedka iyo waxgaradka kale xildhibaanada deegaanka haweenka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka halkaasi ka hadlayna hadaladoodii ka mid ahaa madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo marwadiisa waxaanu leenahay hambaliyo ilaahay xilka laydin saaray ilaahay hayduku asturo cadaaladda iyo sinaanta halkay noogu qoranayno astaanta midnimada iyo cadaaladda iyo sinaanta iyo horumarku waa inta xisbiga kulmiye ku ballan qaaday wadadiinii oo martaan baa idina alxamdulillah ku noqonaysaan madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi xilka uu maanta ku soo baxay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa aad iyo aad baan u hambalyeeynaa soo dhawow baan leenahay halkan waxaanu ka hambalyeeynaa madaxweynaha maxaa la yiraahdaa Muuse Biixi Cabdi dhawaan madaxweynaha noqday ayaanu halkan ka hambalyeeynaa dhamaantayo halkan waa meel ballaaran oo la isugu maanta si lagu hambaleeyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi dhammaanteen waa madaxweynaheeni waynu wada hambalyeynayna hambalyaanu leenahay waanu u ducaynaynaa ilaahay xilka loo igmaday ha u fududeeyo madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici waxaanu leenahay hambalyo ayaanu leenahay Soomaaliland gees ilaa gees maanta biyaha baadkay wada cabaysaa waxaanu adigana ka rabnaa inaad halka si fiican gaarsiisid intaanu ka rabnaa madaxweynaynta weeye aad iyo aadna waanu ku hambalyeeynaa mudana madaxweyne ummadda cadaalad baa deeqda cadaalad baynu ku kaxaynaynaa madaxweyne hambalyo waanu ku hambalyeeynaa aad iyo aad baanu kuugu hambalyeeynaa haddii aanu nahay gobolka Sanaag dhamaantii waxqabadna waanu ka sugaynaa codsanaynaa cadaalad aad dadka Soomaaliland ku dhaqdid baanu ka codsanaynaa aad iyo aadna waanu kaaga codsanaynaa halkan isugu soo baxnay inaan ku hambalyeyno madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taladeeda ku guuleystay iyo Cabdiraxmaan Saylici oo ku-xigeenkiisa labadiinaba waxaan leenahay hambalyo waxaan kaloo adin rajaynaynaa ama aan hambalyeynaynaa labada gudoomiye ee wadani iyo ucid waxaan leenahay sida qiimaha badan ee aad u hambalyeyseen ee aad u hanayseen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleystay adinkana waxaanu adin leenahay hambalyo waxaanu hambalyeynaa madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi xildiid iyo ku-xigeenkiisa hambalyaanu leenahay waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee ku soo baxay doorashada ku timi codka iyo xalaashaba iyo ku-xigeenkiisa xafladan waxay ku beeskaraysan tahay si wadicidda madaxweynaha qaaliga ah ee hore Axmed Maxamuud Sinaayo iyo hambalyeynta madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi oo aynu leenahay hambalyo soo dhawow madaxweyne xil ballaaran baa ku yaala ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa in ilaahay ku fududeeyo waxaanu leenahay ilaahay ay idinku xoojiyo nidaamka iyo cadaaladda iyo haysashada aad haysataan kursiga ugu dambeyntiina munaasabadaasi waxaa halka isaga dambeeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Sanaag Yuusuf Xasan Faarax agaasimaha wakaaladda xabkaha Soomaaliland Cabdillaahi Cali iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faraay madaxweynaha Muuse Xuseen Cabdi xildiid aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa doorashada uu ku guuleystay oo uu noqday madaxweynihii shanaad ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleysta iyo ku-xigeenkiisana aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa uguna ducaynaynaa mudane madaxweyne waxaad madaxweyne u tahay shacabka Soomaaliland oo dhan meel kasta joogo ama ku doorteen ama yaana ku dooranin waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa
madaxweynaha hadda aynu dooranay mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waxaan idin leeyahay labadiinaba hambalyo 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 allah ha idinku asturo oo ha idiin fududeeyo hogaaminta aad hogaamin doontaan 5 sano ee la idin doortay waxaan iyagana hambalyaynayaa labada murashax iyo labada ku-xigeen ee xisbiyada mucaaridka ah oo ugu horeeyo xisbiga ucid faysal cali waraabe وعبد الله حسين درويش سومالي كيبل تي في عرقابو